Asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeyay dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya khilaaf xooggan oo ka taagan ajendaha shirka hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay ku yeelanayaan dhamaadka bishan. khilaafka beesha Cayr iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo cirka isku shareeray siyaasiyiin hor loo ku soo biiray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo deegaanada beesha ay degta laga mamnuucayo. dowladda Soomaaliya albaabka u laabtay ilaahi dhaqaale ee mid ka mid ah ururada hubeysan ee dagaalka kula jirto waxaan idin soo gudbin doonaa walwalka hortale ee ganacsatadu ay dareemayaan. madaxweyne Xasan waxa uu saxiixay in saakay si degdeg ah loo fuliyo dilka toogashada ah ee laba ka mid ah eedeysanayaasha ku xirnaa xabsiga dhexe ee Muqdisho. go'aanka maxkamaddu ay qaadatay iyo dadkaasi eedeymaha hore loogu soo ogay ayaan idin soo gudbin doonaa. sidee dowladda federaalka ugu suurtagelaysaa in ay howlgeliso diyaaradda Somali Airlines oo markaan hadalhaynteedu ay qabsatay guud ahaan gobolka Geeska Afrika. dowladaha ka soo horjeeda iyo walwalka ay dareemayaan arrinta uu ku saabsan yahay. Cali Jeytana waxa uu markaan wajahayaa culays weyn oo dhinacyo kala duwan ah iyadoo loo aqoonsaday geesiga xoreynta Soomaaliya. inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada ku soo dhaw wararkaasi wararka oo dhameystiran subscribe na saar channelka sidoo kale follow gare oo share gare page-keena dhambaalka wararka waana ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena. ana ku bilownay khilaaf ayaa ka taagan ajendaha shirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho dhamaadka bishan iyadoo waliba kala aragti doonaanta siyaasadeed ee dhinacyadu ay tahay mid maalinta ka dambaysa soo cusboonaanaysa. kadib markii ay cirka isku shareereen dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee looga soo horjeeda qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyada kana socda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee dalka ayaa waxaa xoogeystay guluf siyaasadeedka iyadoo taasi ay abuurtay kala aragti duwanaanta ajendaha siyaasiga ee shirka ka furmaya magaalada Muqdisho iyo qodobada uu daaran yahay. sida ay noo xaqiijiyeen ila waradyo lagu kalsoon yahay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada waxay qaarkood ku gacan saareen in ay magaalada Muqdisho ay soo gaaraan 27ka bishan si loo garfeeyo loona wadaago xaalad ku saabsan dalka iyadoo laga duulayo marxaladda siyaasiga ee Soomaaliya ay ku jirto iyo mid amni. hogaamiyaasha dowlad goboleedyada arrinta ugu muhiimsan ee ka soo horjeedaan ayaa ah in dowladdu ay si rasmi ah u soo afjarto guud ahaan isku dayada maamuladooda ka dhanka ah sida Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle iyo Puntland. waxaa sidoo kale ay dowlad goboleedyadu doonayaan in ay helaan qarashaad badan oo la xiriira lacagaha deeqda ee dalka soo galaya iyo in si siman loo wadaago barnaamijka loogu magac daray la dagaalanka argagixisada oo dhaqaale badan uu ku baxayo, taasoo keentay in dowlad goboleedyadu ay ka cagajiidaan hirgelinta howlgallada dagaal ee dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda ay iska kaashanayaan maadaama isha dhaqaale ee ay tuhumayaan inay halka ku jirto ayna noqonin mid si rasmi ah dhinacyada u wada gaadha ama loo soo bandhigo. si walbaba ha ahaatee dadaalkan waxaa ku jira madaxtooyada Soomaaliya oo doonaysa in shirkaas uunan dib u dhicin. khilaafka Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha Cayr ayaa cirka isku shareeray iyadoo waliba ay markaan siyaasiyiin hore iyo kuwo hor leh ay ku soo biireen. toogashadii Ciidid oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana loo toogtay wasiir hore Siraaj ayaa waxa ay sababtay in ay xirka ku shareerto hadalhayn weyn iyo khilaaf soo kala dhex galay beesha uu ka soo jeeday Ciidid iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. beeshu waxay magaalada Muqdisho iyo meelo kale ay kaga dhawaaqday in ay qaadayso go'aano degdeg ah iyadoo waliba qaadaysa tillaabooyin ay doonayso inay kaga falceliso dilkii toogashada ah ee uu saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fulintiisa isla markaana lagu dilay Axmed Cabdullaahi Ciidid oo ahaa askarigii ay xabadu kaga dhacday wasiirka hore ee howlaha guud iyo dibadhiska dalka ee xukuumadda Xasan Khayre. waxayna beeshu sheegtay in ay ka xun yihiin go'aanka madaxweynuhu oo iskii u qaatay oo cid gaarana ku raali gelinay isla markaana ka baxsan heshiisyadii iyo safgaradyadii beelaha ay ka soo kala jeedeen labada marxuun ay gaareen oo la xiriiray xalinta arrintaasi. waxay sheegeen in ay qaadayaan tillaabooyin
waxaana magaalooyinka ay beeshu degta laga mamnuucay xubnaha loo arko in ay yihiin shakhsiyaad garab taagan xasan sheekh maxamuud oo arrintaa gacan ka geystay, sida taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kale xildhibaano uu ka mid yahay cabdixakiim oo isna kasoo jeeda deegaanada beeshu ay degto. waxaa sidoo kale beeshu ku dhawaaqday inay qaadayso tillaabooyin aynan micinaynin islamarkaana loo arko inay yihiin aargoosi. dowladda federaalka ayaa albaabka u xirtay ilihii dhaqaalaha ee mid ka mid a ururada ay dagaalka kula jirto, iyadoo weliba soo gebangabaysay cutubkan oo loo arkay inuu ahaa mid sii jiitamayay muddo dheer islamarkaana u baahan in laga qaato go-aano dhab ah. sida uu ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya, dowladdu waxa ay hirgelisay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee soo afjarayay guud ahaanba ilaha dhaqaale ee Al-shabaab. waxa uu xaqiijiyay in ay dowladdu si wadajir ah ay u qaadayso guud ahaanba hanaanka lagula dagaalamayo canshuurad beenaadka laga qaado ganacsatada, iyadoo weliba la sameeyay lambarada gaarka ah ee ay ganacsatadu kusoo gudbinayaan xogta cidda canshuurta aruurinaysa iyo sidoo kale midda bixinaysa intaba. waxaa sidoo kale la howlgeliyay ilo sirdoon oo ka howlgala suuqyada muhiimka ah islamarkaana sida ula socda dhaqdhaqaaqa ganacsatada. shakhsi walba oo ka mid a dadkaas waxa uu hayaa howl u muuqata inay tahay mid ganacsi, balse waxa uu la socdaa dhaqdhaqaaqa dadka ay la kulmayaan, kuwa ay telefoonada kula hadlayaan iyo kuwa ay wax kala bedelanayaan. ganacsatada loo arko in ay ka mid yihiin canshuur bixiyaasha Al-shabaab. wasiir doodisho iyo Dr. Nuur oo asna ah wasiirka maaliyadda ayaa hoosta waxay ka wada xariiqeen in la xiray albaabka ugu weyn ee dhaqaalaha kadib markii la howlgeliyay tillaabooyinka lambarada gaarka ah iyo hay'adaha gaarka ah ee la soconaya. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka waxay fulisay xukun dil ah oo horey loogu riday 2 eedeysane kuwaas oo noqonaya shakhsiyaadkii 3 ka dhigi lahaa dilalka ay fulisay dowladda madaxweyne xasan sheekh islamarkaana ku aadan in xukunkooda la fuliyo guud ahaanba dadkii maxkamaduhu ay horey ugu xukumeen heerarka maxkamadeedna ay soo mareen kiisaskooda ee la xukumay ama lagu helay dambiyada. waxaa la toogtay Shucayb Cabdulaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdi Jabbaar Cumar oo labaduba ka tirsanaa mid ka mid ah kooxaha dowladdu ay dagaalka kula jirto gaar ahaan Al-shabaab islamarkaana loo haysto inay dilal ka geysteen Muqdisho. sida ay sheegtay dowladda federaalka, raggan waxay ahaayeen dambiilayaal lagu soo oogay guud ahaanba eedeymihii la xiriiray kiisaskooda, iyadoo weliba lagu helay inay ahaayeen dambiilayaal ka dambeeyay guud ahaan dilalka iyo dambiyada culus ee lagu soo oogay. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta fulisay dilka toogashada iyadoo goob fagaara ah tiirarka lagu xiray islamarkaana ay saf u galeen ciidanka qalabka sida askar ka tirsan kuwaas oo si toosa u tooganayay labadan ruux ee kala ah Shucayb iyo sidoo kale Saadiq Cabdi. waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey dowladdiisa loogu eedeeyay waqtigii hore ee xilhayntan ka hor in ay ahayd dowladdii ugu badnayd ee fulisay xukuumada dilka. Mareykanka iyo sidoo kale dalal kale ayaana ka carooday dilalka isdaba jooga oo qaarkood ay tilmaameen in hufnaan iyo cadaalad toos ah aynan la kulmin. taasi waxay keentay in madaxweynihii ka dambeeyay xasan sheekh maxamuud waqtigaas ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu hakiyay inta badan dambiilayaasha iyo fulinta xukuumada dilalka ah marka laga reebo shakhsiyaad dhacdooyin mahadha geystay ka dambeeyay sida qaar ka mid ah raggii qaybta ka ahaa qaraxii Soobe ee dadka badan lagu xasuuqay. waxaa sidoo kale dowladdaasi ay iska meel dhigtay kiisas badan oo muran abuuri lahaa islamarkaana ay dib u dhigtay sababo la xiriira inqilaab siyaasadeed iyo mid bulsho oona ka dhalanin. madaxweyne xasan ayaa dib u bilaabay dilalkiisii waxaana la fuliyey dilkii 3aad islamarkaana horey waxay maxkamaddu xukun dila ugu fulisay Dable Caydiid oo loo haystay in uu dilay
wasiirkii wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska dalka, halka saakana 2 xukun oo dil ay fulisay. Dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday inay howlgelinayso diyaaraddii Somali Airlines, taasoo in muddaba shaqadeedu aynan soconin islamarkaana ah mid istaagtay hawsheeda waxay ka dambeeyey burburkii baahsanaa ee dalka la degay. Wasaaradda gaadiidka ayaa magacooda guddi khubaro ah kuwaasoo loo xil saaray in ay ka shaqeeyaan howlgelinta diyaaradda, iyadoo weliba markaan ay jiraan tartamo culus oo la xiriira habka diyaaraddaasi loo howlgelinayo oo ay ku jiraan dowlado kala duwan. Dalalka dariska la ah Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada dhaqaalaha hodanka ku ah ee sameeya maalgashiga ayaa ku tartamaya diyaaraddan iyo nooca ay tahay in loo howlgeliyo. Dalalka Carabta qaarkood ayaa Soomaaliya doonaya in ay ka caawiyaan dhinaca hirgelinta diyaaraddaasi iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah shirkadaha ay leeyihiin, isla markaana qaata qaab iyo sidoo kale habraac u gaar ah oo ay Soomaaliya u adeegsato sida diyaarad ay leedahay inta laga hirgelinayo shirkadda duulimaadyada iyo diyaaradaha iyadoo ay si rasmi ah u leedahay. Waxaana sidoo kale ay doonayaan in ay percentage ama dhaqaale ay ku yeeshaan howlgalka diyaaraddaasi. Cali Jeito Cusmaan ayaa loo aqoonsaday inuu yahay geesiga xoreynta ee gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka, waxaase jiray cadaadis xooggan oo ay saarayaan xubno kasoo horjeeda habka loo howlgelinayo ciidamada ammaanka iyo qorshaha cusub ee madax gadashada xubnaha loo arko inay yihiin argagixiso khatar badan oo ku sameynayo. Kadib markii Cali Jeito oo bixiyey lacagta uu horey u ballan qaaday in uu siinayo qof walba oo soo dila shaqsi shabaab ka tirsan, ayaa waxaa falcelin ay ka timid qaar ka mid ah hay-adaha reer galbeedka ee ku sugan dalka, kuwaas oo ka digaya in dadka si bareer ah loo dilo iyadoo dhaqaale la raadinayo. Waxay sidoo kale arrintan ay sare u qaaday mooralka qaar badan oo ka mid ah bulshada, waxa uuna ugu baaqay in dadka go'doonsan ay xitaa inta dilaan xubnaha ururkaas ay iskaga soo cararaan, qaataan lacagtaas oo ku filnaan karta. gudahaan daawadeyntaas waxaa ku dhan warka oo kaaga imaan dhabaalka wararka. haddii daawadaan ugu cusubta subscribe saar channelka, sidoo kale follow garee oo share garee page-ka dhabaalka wararka. waana ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena. nabadgelyo.